Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh igu xidhan sideetiin mi fiicantiin anigu idin wanaagsanahay kusoo dhawaada video cusub maanta waxaan idin la wadaagi doonaa afur yar oo aad iyo aad u fudud aadna u macaan oo aad sambuusaha kaga raysan kartid maantaadan sambuusa samaysan karin aad kasoo tuuran kartid waqti yar oo aad iyo aad u fududna waxa way ka qaadanaya aad iyo aadna u macaan ugu horeyn waxaan u baahanahay waxa waaye chicken amba digaag hadaa haysanin oo rabtid inaad hilib isticmaashid gadaal baa idinka sharxi doona saa u sameysanaysaan laakiin ugu hore waxaan u baahanahay waa digaag amba chicken digaagu waxa waaye waa bilaa laf waa digaag jir kaliyaata digaagiyan jarjaray si yar oo dhuudhuuban baa ugu gooyay sida beerkii waxyaabahaas loo jaraa si yar oo dhuudhuuban oo yar dhaadheer kadib madeebad baa soo qaatay madeebad waxaan kusoo shubtay wax yar oo saliid ah waxaan kaloo kusoo shubtay wax yar oo milix ah iyo wax yar oo xawaash kala dhaho oregano iyo wax yar oo chili flakes amba basbaas qajiga casaanka ah oo tuman iyo wax yar oo basbaas cas oo powder ah iyo waxaan kusoo shubtay kale basbaas isku jir ah oo mindi spices la dhaho ay xawaashada wixii aad haysatid baa soo qiyaasanaysaa saliid iyo milix intaas isku soo daray wixii dhan waan isku walaaqay kadibna chickenkii aan soo googooyay baan ku soo riday hadda chickenkii baan xawaashadii iyo saliidii iyo milixdii wixii dhan aan si fiican u dhex gelinayaa waan isku walaaqaynaa kadib dabool bacba afka kaga xiraaya waxaan gelinayaa talaagada 30 daqiiqadood baan ku dayn doonaa chickenku ugu yara nasto xawaashiyaashu ay chickenka amba digaaga ay lafta uga galaan hadaad waqti haysan hore ka samaysan kartaa hadaad waqti haysatidna nus saac amba ka badan baa sugi kartaa nus saac kadib chickenkii waa kasoo saarnay talaagadii bacdii aan ka furo ku xidhnayd kadibna waxaan soo qaatay mashiinka la dhaho air fryerka mashiinka shabagiisa wax yar oo saliid aan soo mariyay kadibna chickenkii ayaa kusoo duuridayaa si aysan waxa weeye chickenku markuu bislaanayo uusan ugu dhagin mashiinka saliid yar u soo mariyay ani air fryerka ku shiilan doonaa chickenka hadaad air fryer haysan ovenka ku samaysan kartaa oven hadaadan haysan daawaha iskaga dubo laakiin air fryerka waqti yar uu ku sameynaya iyo cunto macaan air fryerkii baa mashiinka galiyay wuxuu ku jiri doonaa 8 daqiiqadood iyo 200 oo degree celsius ah haddana waxaan soo saartay maqliyaan dabka soo saartay waxaan kusoo ritay basal si yar oo dhuudhuuban oo soo gogoostay wax yar oo saliidana waan kusoo darsaday basashana wax yar yara shiilayaa waxa waaye saliid badan ma loo baahna inaad ku dartid basasha wax yar oo macna lahayn waa ujeedaan saliid badan aniga ma ku darin basashii 2 daqiiqadood baan saa u yara shiilay kadibna waxaan kusoo darsaday 3 nooc oo barbarooniyaal waa casaan waa akhtar waa huruud eegna si yar oo dhuudhuuban baa usoo gogooyay iyo waxaan kusoo darsaday kabsar iyo toon isku soo tumay haddana basashii barbarooniyaashan wax yar isku yar walwalaaqaynaa si ay wax yar ayaguna ay isugu yara shiilmaan kadibna waxaan kusoo darsaday xawaashiyaal yar baan kusoo darsanaya intii aan ku daray chickenka oo kale aan ku darsanaya laakiin ma ku badinayay wax yar kaliyaata waaye kaas xawaashiyaashii aan ku wada shubay kadibna waa kaas aan isku wada walwalaaqay 3-4 daqiiqadood baa intaan si fiican aan isugu soo yara shiilnaa insha Allah oo aan dabka ku dayn doonaa kadib baa soo noqonaynaa 3-4 daqiiqo kadib wax biyana ma ku daraayay 8 daqiiqo kadib chickenkii waa kana air fryerkii way soo shiishay air fryerkii markaan kasoo saaray chickenkii saan ayuu kusoo baxay saan ayuu soo shiilmay quruxda badan maasha Allah chickenkii saan ayuu diyaar noogu yahay 4 daqiiqadood baan isku yara shiilayay basashii barbarooniyaashii hadda waxaan kusoo darsanaynaa markii basashii barbarooniyaashu ay noocaan noqdaan baa waxaan kusoo darsanaynaa digaageennii aan soo shiilanay kadib intan baan isku walaaqaynaa kadibna waxaan kusoo darayaa wax yar oo biyo ah sababtan biyo ugu daraa waxa waaye chickenka waa soo dubay uu qalalan yahay basashan iyo barbarooniyaashan ayagaaba qalalanba ayagoo sidana cunto laguma cuni karo dhuuntaba kaagama degayaan way qalalan yihiin si ay usoo yara qoyaan oo qoyaan yar usoo yara yeeshaan baan waxa weeye biyahan ugu shubayaa waan daboolayaa dhowr daqiiqadood aan dabka ku daynayaa way isku soo hurayaan chickenkiina qalaylkii badnaa iyo shiilitaankii badneed way ka bixaysaa waa kana chickenkii adduunkii dhowr daqiiqadood ee dabka saan u saarnaayeen oo isku hurayeen hadda chickenkii saan u soo ekaaday marka hore isagoo kaliya aan soo shiilnay oo macaan soo baxay baa haddana inta barbarooniyaasha wixii ku darnay aan biyana kula darnay oo qoyaan isla soo yeesheen oo qalaylkii badnaa oo ka soo baxay aad iyo aadna u macaan yihiin wayna u udgoon yihiin
soo waa kaasaani biyo badan iyo ma rabo qoyaan badan inuu iga yeesho saasa uga qalajiyay biyaha badankoodii soo hadda saan u diyaariyay ugu yahay dabka ayaan ka diminayaa soo halkaan saa ujeedaan waxaan kusoo diyaarsaday madeebadaas chickenkii alaabtaas kusoo shiilinaya igu jirta halkaana roodhiyaan kusoo diyaarsaday halkaana waxaa yaala salad bableedka igu jira dhinacaasna waxaa yaala ketchup iyo sauce soo waxaan sameeyay roodhidan dhexda ka kala jeexaynaa roodhidan baan rabaa inaan chickenka maanta ku cunno soo roodhidan dhexda ka kala jeexay saladkii baan soo qaaday 2 jeexo saladkii saa roodhida ugu dhex riday kadibna chickenkii iyo khudradii aan kusoo shiilnay oo dhan baan dhexda kaga sii wada ridaya chickenkii alaabta hadaa rabtaan bardhiyo carrot baa ku darsan kartaan waxa way roodhida hadaa rabtaan ciish baa isticmaali kartaan hadaa rabtid laxoox hadaa rabtaan waxa way khubus baa isticmaali kartaan amba tortilla hadaa rabtaan sauce baa marin kartaa roodhida kadibna saladka dhex gelin kadibna chickenkii alaabtan baa sii dhex gelin kartaa saa jeceshiina isugu habaysan kartaan kaliya idea ka heshaan baa videoga idinku soo duubay soo waa kaas aan isaas roodhidii aan ugu soo diyaarsaday saladkii iyo chickenkii alaabtii baan saas ugu soo dhex ritay soo xabadii ugu horeysay saasay diyaar ugu tahay haddana midkii labaad aan sidii hore kale aan u sameynayna saa ujeedaanba saladka noocan aan isticmaalay markaan sandwich noocan oo kale sameynayo sababta qurux uu ka dhigayaa maxaa la dhahay roodhidii iyo sandwichka qurux u yeelaya soo waa kaas xabadii labaadna saasaan soo hagaajinay marmarka qaar waxay ka fursan weynaysaa inaan gacmaha saas ugu riixo soo chickenka uga soo daadanin soo waa kaas hadda blade baa soo qaatay sandwichkii aan dhexda ka soo wada geliyay alaabtii oo dhan baan soo dul dhigtay kadibna waxaan sameeyay ketchup iyo sauce meesha taali intaan isku soo walaaqay baan bacdan ku soo shubay kadibna afka horaan ka dalooliyay sandwichka korkiisa aan sauce aan saas ugu daadsanaya sauce hadaa rabtaan marka hore roodhida ka soo dhex marin kartaa hadii kalena saana ugu dul daadinay anaga sana iskaga dul daadsana soo kaas saddexdii xabay roodhida sidaas aan chickenka u soo wada dhex geliyay alaabtan u soo wada diyaariyay alaabtan alaab inaba caadi ahayn waaye casha ka dhigan kartaa quraac ka dhigan kartaa afur ka dhigan kartaa suxuur ka dhigan kartaa waa alaab oo baawar weyn mid kale waliba markii ku afurtid xabad roodhidan kamid ah sandwichka markaa ku afurtid gaajo dhan kuma qabanayso casho xitaa uma baahanaysid soo anaga maanta waxaan ku afureynaa intaan waa roodhidan aan alaabta dhex geliyay sandwichkan halkaan waxa yaalo waxa way labeeniyad iyo fruit baa isku soo dhex diyaarsanay halkaan timirteeni halkaan juicekeena amba sharaabkeena noo yaalo intaan waa anaka maanta afurkeena waa furo fudud oo sambuuska maalmi kartid I hope ina videogan ka heli doontaan amba idin cajabin doono amba aad waxaan ka faa'iidi doontaan inta videoga ku xigay ka kulmayno xidhi kaga tagaya maca salaama videogan xaqiisa siiyo oo like iyo share ta ka iloobin insha Allah kanalkana subscribe ta saar asxaabtiina la sii share gareey videogan si aan u helo asxaab sidii noo kala qiimo badan soo waa kaas anaka intana maanta ku afureyna afur wanaagsan maca salaama bye bye insha Allah videoga dambe is arki doona waan soo wada salaamaya dhamaantiin bye